saddex waa qaadasho, saddexna waxay leeyihiin iska fiirin ama iska eegid. Amarka Allah iyo kan rasuulka waa qaadasho, amarka waalidkan waa qaadasho, taladana waxay leedahay qaadasho. talada walaalka ayaan ka hadlayaa. Saddexna waxay leeyihiin iska fiirin ama iska eegid. Saaxiibka iyo guurka iyo lacagta, cidda aad nolosha loo wadaagaysid iyo dakhligaada meeshuu kaa soo galo iyo cidda aad saaxiib ka dhiganaysid, inta waxay leeyihiin iska fiirin oo iska eegid, oo hadhowtaan waxay saameyn ku yeelanayaan noloshaada dambe. haddii adduunyo badan aad soo tacabto lagu dhaho waxaa soo tacabto waxaa waaye xaaraan, yani xanuunkeeda ayay leedahay. iyo cidda nolosha aad la wadaagaysid mustaqbalka ayana waxay leedahay iska fiirin iyo iska eegid. sidoo kale saaxiibka cidda aad ka dhiganaysid aad doonaysid in badan oo noloshaada ka mida aad yani u sheegtid ama aad la wadaagtid, asina wuxuu leeyahay iska fiirin ama iska eegid. saddexda hore waxaa